بعض برلمان كل حري مرة دي برلمان كل حرينا واحد واجب حلبان الدجال كسو تشيدان أي تجانا صوب بقدان أي لصق كل ما ضد كي صار كان باهي وحقبت كود يسد حال كود مرة يسد دجال كسويه مركز كبعد نوحي هلك كل ما أي كعليان دولة فدرال كي كعليان يا برلمان كي لا نهر دجال واحد دجال ذاك السعودية وحي باهي ومركز أي ويا لإني تبي كعليان وحلقة قبته مركز haddii mar haddaan ka soo jeedo deegaanada inaan bal dadka baahidiisii iyo dhibka ka jira iyo wixii aan soo ogaado taasaan u soo socodkaygu iyo aan dadkeeda deegaanka aan la soo kulmo. waxaa jira madmadow ka dhaxeeya dowladda Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya arrimahaasi wada hadal ma ka socota maya ma socdo maxaa yeelay dowladuna nama soo wakiilan oo xildhibaano iga soo horeeyay aniguna waa aniga hadda imid cid dowladdu soo wakiilatay male marka arrimahan kale markay dhacaana hadii madmadow soo kala dhex galo hay'ad fulin baa jirto xukuumadda u xilsaaran hawshaas in xukuumaddu ay wafdi u soo dirsato oo mugdiga soo kala dhex galay taasoo waxay u taallaa xukuumadda u taallaa iyadoo markaa kaashanaysa baarlamaankii Soomaaliyeed cid ay ka soo kaxaysanaysa iyadoo kaashanaysa marka waxaad moodaa xoogaa xukuumaddu inay wali ay taa ka gaabinayso ayna arrinta haliilsiin waana sheegay waxaan xukuumaddu waa inay dirtaa haddana aan ku celinaya si madmadowgaas meesha u baxo oo dowladdii iyo maamuladii jiray ay islaam baqaadaan in ay dowladdu soo dirto wafti soo dirto oo waxyaabaha Puntland ka cabanayso ay ka wada hadlaan oo runtii ah arrin aad u muhiimsan maxaa yeelay Puntland waxa weeye waa laf dhabartii dowladda federaalka 22 sano Puntland waxay ahayd hormoodu u ahayd jiritaankii iyo midnimadii Soomaaliya dad badan baa waxay aaminsan yihiin Puntland waa goosatay Puntland ilaahay kuma kalifin inay Soomaaliya ka goosato oo Soomaaliya burburiso waxay u taagan tahay midnimadii iyo qarannimadii Soomaaliya midnimada Soomaaliya waa muqaddis marka dowladda Soomaaliya oo federaalka waxaan ugu baaqayaa inay wafti u soo dirto in wada hadal furo waxaan wada hadal ugu dhameeyna wax kale uma dhameyn karo madmadowga meesha ka soo baxayna oo runtii culays weyn leh in la dhameeyo taasaan aad u jeclahay oo xukuumaddu is xil iska saarto laakiin xildhibaan idinku waxaad tihiin baarlamaankii Puntland ee dowladda federaalka bal marka hore sidaad u aragtaan madmadowgaas iyo Puntland dhaliilaha ay tirsanayso oo ay leedahay dastuurkii wax laga bedelay iyo deeqihii si siman looma qeybiyo arrimahaas bal maxaa ka jira sidaas oo aragtaan arrimahaas horta haddii aan dastuurka ku laabto waa run dastuurka wax badan baa laga bedelay qodobo badan sida madaxweynaha Puntland sheegay anigu hadda awal baarlamaankuna ma arag saxiixayaashii roadmankii wixii la saxiixay mayna arag baarlamaanka lama horkeenin sidana waxaa fiican umadu markay wax ku heshiiyaan heshiiskii lagu heshiiyay in la fuliyo horta waa waajib waxaad moodaa dowladda hadda joogta madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Saacid inayba arrimahan dastuurka horta ayna ka dharagsanayno ayna aragba laftigoodaba in dastuurka markii dastuurka la sameeyay ama roadmarkii la sameeyay Kampala code lagu sameeyay iyo garowato iyo shirka xamar lagu qabtay iyo kii gaalka lagu qabtay mas'uuliyiinta hadda dalka hogaaminaya banaanka ka joogeen mana filayo inay hadda bedelida dastuurka ku leeyihiin maxaa yeelay madaxweynaha hadda talada haya federaalka Soomaaliya asaga wal khiyaamayo hal sano laga gooyo 5 sano oo ahaa halkaas waxa ka cad in baalkii la farafareeyay mas'uuliyadda waxa qaadaya ciddii dastuurka gacanta ku haysay oo u horeeyo wasiirkii dastuurka dowladda federaalka meelgaarka ah baa mas'uuliyadda qaadaya asaga gacanta ku hayay asaga bedelay ergadis dad boqolaha xalisay marka waxaan qabaa arrintaas ciddii wixii lagu heshiiyay oo internationalkii joogay oo adduunka goobjoog ka ahaa ciddii farafareysay horta inaan laga harin inta guddi loo saaro maxkamad la soo taago dowladda federaalkaana waxaan ugu baaqayaa inay guddi dhexdhexaad u saarto oo ay baarto maadaama muxuu ahaa dowladda hadda waxa oo Puntland ku eedeynayso waa cabashadii Puntland soo jeedisay oo inta dowladda loo soo jeeday war dastuurkii la farafareeyo saana wax ka qabta oo xooga ay ka gaabisay taas aan hadda oo cilada keentay maahane ma ahayn wax iyagu hadda ay bedeleen baarlamaanka federaalka Soomaaliya hal qodob arrintaas lug buu ku leeyahay oo qodobkii ahaa aqalka sare baarlamaanka isimada oo aqalka sare in ay madaxweynaha wax ka dooranayaan taas baarlamaanka waa la hor keenay duruufta jirta darteed maadaama hadii goboladii iyo maamuladii ay dhisnayn oo ay diyaar ahayn madaxweynaha waqti dhow la dooranayay baa dowladdu marka baarlamaankii wuxuu go'aan gaaray ilaa inta maamul goboleed dhisayo
oo isimadii la dooranayo la soo xulaa aqalkii sare in ilaa amartan dib loo dhigo oo maadaama ay diyaar ahayn halkaas qodob baa baarlamaanku ogyahay qodobo kaloo badan oo wax laga bedelay qaar muxuu ahaa 2 farqadood oo 7 farqadood xub lagu daray qaar muxuu ahaa wax laga bedelay intaasoo dhanba way jiraan baarlamaankana ilaa hadda waxaa lama horkeenin marka dowladda waxaan leeyahay warsi madmadow meesha uga soo baxo guddi xaqiiqo raadina oo ka socda baarlamaanka federaalka oo qaabilsan dastuurka qaabilsan in la keeno oo la soo xulo in xukuumadda qaar looga soo daro in saxiixayaashii roadmanka iyo ayaga la isku daro in la wadahadal ugu fariisto wixii wadahadal lagu dhameeyo markaasaa wax saxmayaan marka taasna waxaan leeyahay arrintaas saas in loo sameeyo aad u jecel xildhibaan waxaa jeclaan inaan ku weydiiyo waxaa tihiin xildhibaanadii baarlamaanka khalad kastoo jirna hadda xukuumadda waxaa ognahay waxaa soo dhisay baarlamaanka oo madaxweynaha idinkaa soo doortay muran badan baa ku dhex taagan yahay arrimahan dastuurka markayna si fiican noogu faahfaahsay iyo maamulada jira idinka qorshaha idinkaga aadan aad ka qaadan kardhaan sidii bal isu soo dhawaasho aad bilaabi lahaydeen oo ilaa xilligan aad samayseen muxuu yahay horta sideeda markii wax lagu soo bandhigo oo waxaana khaldan la yiraahdo oo baarlamaanku waa sharci dejiyaal weeye ma ahan baarlamaanku meel kasta horta inuu galo ma ahan baarlamaanku waa sharci dejiye shacabkii wakiilka yahay arrimahan hadda madmadowga ah oo soo kala dhex galay mas-uuliyaddeeda waxaa iskale xukuumaddu waa inay fulisaa xukuumaddu markii haddii ay ku guuldaraysato inay baarlamaanka usoo hordhigto oo tirahdo baarlamaanka arrintaana naga hor timid idinkaa sharci dejiyanaha go-aan ka soo gaara taasaa baarlamaanka shaqadiisu ah baarlamaanka shaqadiisu siyaasad maahan wixii siyaasada xukuumadda ku shuqlay dowladda ku shuqlay inay wax ka qabtaan ayadina waxaan filahaya inay dhowaan iska dhammaan doonto haddii aan wadada hadda aan soo maray oo aan sheegay oo dowladdu wafti soo dirto guddiga baarlamaanka oo federaalka ay u yimaadaan hogaamiyaashii saxiixayaasha ah ay yimaadaan laisla baarandego taasaa wax ku saxmayaan marka haddii sida hadda lagu kala taagan yahay lagu kala taagnaado waa burbur hor lahoo dowladdii waa lagu kala tegayaa meesha marka waxaan qabaa taas intii lagu kala tegi lahaa in la isu tanaasulo oo miiska wadahadal lagu dhameeyo oo wixii khaldan la saxo ugu dambeyntii xildhibaan ama su-aal haddii aan ku weydiiyo kaleeto maxay tahay bal hadda socdaal baa puntland ku timaaday maxaad xaggee rabtaan inaad tagtaan maxaad qorshaysatay yaa rabtaan inaad la kulantid waxaan rabaa horta saan u sheegay waa meelahan soo boqay deegaanada puntland bay ahayd waxaan jeclahay inaan hadda gaalkacyo markaan ka tulo safarka xiga inaan caasimadda puntland tegi doono oo mas-uuliyiinta dowladda aan kulmi doono madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dadka shacabka ah indheergadka inaan la kulmo odayaasha waxyaaba badan aan ka hadlan aad u jecla xildhibaan wax ma iska weydiisan waxaa ka mid tihiin baarlamaanka waddankan hadda khilaafka ka jirta adiga oo noo sheegtay xildhibaanada wax ma iska weydiiyeen bal sida xal lagu gaari karo arrinta lagu soo aftiri karo waa su-aal fiican arrintaas dee waxaana hadda aan ka gaarin waxaa kulmay baarlamaanka iyo fasax u baxaya oo fasax qaatay iyo arrintaana kulantay marka taas waxaanu ka hadli karnaa aanu arrimahan khilaafka aanu ka wada hadli karnaa ama xukuumaddii aanu ku boorin doonaa markii la furo baarlamaanka oo bisha soo socota labada la gaaro baarlamaanka dib loo furo markaasaanu ka wada hadli doonaa hadda laakiin baarlamaanka fasax hadduu ku maqan yahay mar hadduu fasax in walba danihiisii gaarka ahaa iyo reeradii iyo maamuladii waxaa ku jira baa lagu mashquulsanya marka shaqada la isma dul saaro ugu dambeyntan waxaan jeclaan lahaa anigoo imaan xawada xariib ka socda inaan ku weydiiyo maxaad iyaga u sheegi lahaydeen marka maamulada xilliga waxaa sheegteen xukuumaddu qaladka iyada uu kasoo bilaabmay maamuladuna ka biidiidan yihiin iyagana sida wax ku saxmi karaan oo oran karaa tilaabada qaada waa run iyaga laftooda waxay wax ku saxi karaan mar haddii qofka hadalkiisa la maqli waayo oo in badan uu tala soo jeediyey oo hadalkiisa la maqli waayo qofka marka dambe waa iska xanaaqayaa maogtahay sideeda waxaa lagu heshiya in la gees mara maahan marka maamuladana waxaan leeyahay idina dulqaad muujiya oo sidii idina aad iyaga xataa u toosin lahaydeen oo talo u siin lahaydeen oo oran lahaydeen aynu isu nimaadno oo wixii aan saxno oo aynu wadahadal yeelano taasaan ku boorinay in la sameeyo wax walba waa wadahadal haddii waxaan wadahadal lagu dhammayn karan qori caaradii iyo laguma dhameeyo isqabsiya waxaa lagu dhameeyaa miiska wadahadalka inta lasoo fadhiisto oo lasor yimaado oo labada dhanbe guddi u saaraan wixii khilaaf oo halkaa jira la xaliyo ciddii dastuurka lagu heshiiyey oo adduunkao dhan goobjoog ka ahaa inta dabagal lagu sameeyo ciddii mas-uulka ka ahaydna maxkamad la soo saara taas aanu aaminsan wax lagu dhammayn karaa